may way wadag su'aasha kale haddaan su'aasha adeeg maxaa waayay haddaan su'aasha ku rogo su'aal kale ku weydiiyo ambi moosi wax la isweydiinaa muhiim wax soo dhawo barnaamijka su'aalaha ee maanta jimcaha waa dhawaaba waxaad sheegtaa boowe magaalooyinka Soomaalida ay degto kamid ah oo marka labada xaraf ee ugu horeeya laga reebo noqonaysa naag aduun ma garanayo waxaad sheegtaa geed 5 laamood leh 2 kamidana iftiin yihiin 3 kamidana madow yihiin wala ma garanayo سنت بوسة سؤالنا وغلق قادت هذا مهم أنا أبغى كوسو دو برنامج كسؤالها كلها أنا أبغى واحد شيكتا إن مجالو أي سومالي دكتور أو مجالو إنك سومالي ذا كم ذا لابد حرف وجوه الرأي ما كل غير ونقون السناق مجالو كم ذا مجالو كم ذا مجالو إنك سومالي دكتور لكن لابد حرف أو وجوه الرأي مجالو ذا ما قاعد ما كل غير waxay noqonaysaa naag ma garanaysid okay waa ku mahadsantahay su'aasha labaad haddaan ku weydiiyo waxay tahay waxaad sheegtaa geed 5 laamood leh 3 kamidana ay mugdi yihiin 2na ay iftiin yihiin 3 kamida geed 5 laamood leh 3 kamida waa mugdi 2na waa iftiimaan sababta ka dambaysa taasna waa adagtaa aad iyo aad waxaad sheegtaa maskaxda tanka maroodiga waa ku mahadsantahay baayoosan nooga qayb qaadatay kusoo dhawo barnaamijka su'aalaha magaalada Kismaayo ee channelka Munir Cabdullaah waa dhawahay ma sha Allah aadan kugu mahadcelinaa sida quruxda badan ay soo dhaweysay barnaamijka ma sha Allah waan ku dhawahay fadlan waxaan leeyahay subscribe saara linkii ku cusub channelkan insha Allah su'aasha way weydiin kartaa okay su'aashu waxay tahay waxaad sheegtaa geed 5 laamood leh 5 laamood 3 kamidana ay mugdi yihiin 2 kamidana maaragtay ay iftiin yihiin sababta ka dambayso maxaa dhacday geed 5 laamood leh geed 5 laan leh 5 laam 3 kamid ah waa mugdi 2 kamidana waa iftiimayaan sababta ka dambaysa sheeg sababta ku dambaysa narjing horta geedka narjing ma aqaan wuxuu yahay laakiin geedka sababta uu maaragtay geed 5 laan leh oo 3 aftii 2 aftiimay 3 may su'aashaas ma aqaan ma garanaysid su'aasha kale haddaan su'aasha ku bedelo su'aasha kale waxay dhahaysaa waxaad sheegtaa magaalooyinka Soomaalida ay degto kamid ah laakiin labada xaraf ee ugu horeeya markii laga reebo noqonaya naag bu'aali maya may way wadag su'aasha kale haddaan su'aasha ku adeeg haddaan su'aasha ku rogo su'aal kale ku ambi moosi wax la isweydiinaa muhiim maskaxda tanka maroodiga inta ay leegtahay 80 ma sixin waa ku mahadsantahay saad nooga qayb qaadato waa mahadsantahay su'aashto oo soo dhawo barnaamijka su'aalaha ee Munir Cabdullaah waan ku dhawahay barnaamijka aad iyo aad waxaan ku weydiinayaa su'aashu waxay u dhigmaysaa sida tan waxaad sheegtaa magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaalida oo marka labada xaraf ee ugu horeeyo laga saaro ama laga reebo noqonaysa naag magaalooyinka Soomaaliya ka tirsan tahay magaalooyinka Soomaaliya ka tirsan tahay ama Soomaalidu ay degto Afrika oo dhan waay Soomaaliya leeyahay Soomaaliya waaye oo macnaheedu xarfada hadii laga reebo oo labada xaraf ee ugu horeeya markii laga reebo waxay noqonaysaa naag labada xarf ugu horeysa hadii laga reebo oo dhawaaqitaankeeda waxay noqonaysaa naag bay noqonaysaa magaaladaas haddana isku dayo labadaas xarfood هذا اسكت ناس حرفها لبدا حرفود ugu horeeyay Soomaaliya ka tirsan tahay may
mid kale weyd ma garanaysid taas okay su'aasha labaad waxa weeyaan waxaad sheegtaa maskaxda tanka maroodiga inta uu la eg yahay baaxadiisa ama tankiisa maskaxda bini'aadanka ma maroodiga maskaxda maroodiga miya maroodiga tankiisa inta uu yahay macnaheedu awood uu leeyahay macnaheedu maskaxda awood uu ka leeyahay miisaankeeda maskaxda oo miisaankeeda oo inta ku qiyaasahay maskaxda maroodiga miisaankeeda aad u miisaan maskaxda miisaankeeda ayo waxaad sheegtaa haddaan su'aal kale ku weydiiyo su'aasha kale sidan u dhigmaysa waxaad sheegtaa geed 5 laamood leh 3 waa mugdi 2 waa iftiin sababta ay ku timid geed waa 3 laamood ma 5 laamood 5 laamood waay 3 waa mugdi 2 waa iftiin sababta ka dambaysa macnaheedu geedka ma sheega ama sababta ka dambaysa sheega sababta ka dambaysa haddaan sheego waa macnaheedu waxaa haween iyo maalin maya maada sixin waa ku maadsantahay saa barnaamijka uga qayb qaado sidoo kale ku soo dhawo barnaamijka su'aalaha oo maalin kastoo jimcaha aan bulshada mikrofoonka la dhex qaadno ku sugan magaalada Kismaayo maasha Allah ku dhawahay walaashii macaan waxaad sheegtaa walaalo hadda ku weydiiyo magaalo kamid ah magaalooyinka ay Soomaalidu degto magaceeda marka labada xaraf ee u horeeya la reebo noqonaysa naag haddaan su'aal kale ku weydiiyo su'aasha kale waxay u dhigmaysaa sida tan waxaad sheegtaa geed 5 laamood leh 2 kamid ah ay iftiin yihiin 3 kalena mugdi yihiin sababta ka dambaysa maxay tahay waa kaaga faa'iideyn karaa laakiin waxaad ka daawanaysaa janaalka Munir Cabdullaahi insha Allah dilaahay kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaashaanada meel walba ku sugan tihiin barnaamijka maanta waxayna la socodsiinaysay anigoo ah Shaymaa Cabdi Maxamed barnaamijka la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh